askarigii Mareykanka ahaa ee dilay hogaamiyihii shabakada Al-Qaacida ee Osama bin Laden ayaa hadda ka hadlay sidii ay wax u dhaceen gaar ahaan qaabkii ay u daateen oo ay u galeen dhismihii uu deganaa Osama bin Laden ee ku yaalay magaalada Abbad ee dalka Pakistan. askarigan Robert oo horay uga tirsanaa ciidamada gaarka ee dalka Mareykanka oo da'diisu ahayd 41 oo kana qayb galay fulinta howlgalka ilaa 400 oo jeer ayaa bogiisa uu ku soo koobay shaqadiisii ee uu u bixiyay The Operator. waxa uu qayb ka mid ahaa tafaasiil kaga bixiyay qaabkii uu dilay Osama bin Laden. Robert waxa uu sheegay in markii ay u dhaceen guriga uu deganaa Osama bin Laden isagoo gaaray dabiqii saddexaad ee guriga ugu sareeyay isla markaana ay rasaastii weedarsaday inankii Khalid ee uu dhalay Osama bin Laden kadibna uu Khalid dhaawacmay kadibna uu isagu gaaray qolkii hurdada ee Osama bin Laden uu deganaa iyagoo si fool ah isu soo horbaxay. Osama oo ay la joogtay xaaskiisa ugu yara xilligaasina ay ahayd markii uu askarigan rasaasta madaxa kaga eegtay Osama oo sida ku geeriyooday. askarigan waxa uu inta ku daray inuu isagu mar kale rasaas madaxa kaga sii dhuftay meydkiisa Osama si uu u hubiyo inuu dhintay. wax yarun kadibna goobtii waxa isugu yimaadeen kooxdii ciidanka ahayd ee kuwaas oo mid kasta oo kamid ahaa uu rasaas ku furay meydka Osama bin Laden ilaa uu kala go'ay ilaa 100 meelood. sida uu ku cadeeyay bogiisa ayaa askarigan dilay Osama bin Laden waxa uu meydkiisa loo qaaday dhanka Afghanistan si loo hubiyo inuu isaga yahay. markii la xaqiijiyayna waxa loo qaaday markab dagaal oo ay ciidamada Mareykanku leeyihiin oo lagu magacaabo CVN 70 kaasoo taagnaa biyaha badda Carbeed.